kulanti wanaagsan bulshooy waa hordhaca barnaamij taxane noqon doono aan ugu magac daray waa kuma kaasoo aynu ku garfayn doono siyaasiyiinta waqtigan haddaba yaynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan barnaamijkeena waa kuma maxamuud xaashi cabdi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa saalada ay noo saaran waa kuma Mr Xaashi cusaamaha Soomaalida maxaad ka taqaan waa siyaasi salaankiya saaxadda ku soo fuulay sifaha salkiisu yahay qabqable qabiil 1990kii ayuu jaranjarada ka soo koray golaha deegaanka degmada Burco xilligaasi oo ahaa 30 jir ka hortaasi daawado door intee leeg ayuu mas'uulkani ku lahaa halgankii dalka dib loogu xoreeyay ee SNM waa kuwa makhraatiyada maanta nool ee ka marakacaya barifurkii wasiir Xaashi iyo xilligii qaraara ee bushqad rasaasti iyo booshkaba Xaashi kala soo goostay xeradii abaabulka halgankii SNM kun 1997kii waxa uu ka mid noqday golihii wakiilada Soomaaliland ee lagu soo dhisay nidaam beeleedka wuxuuna safka hore kaga jiray mudanayaal goor iyo alleyl u guclayn jiray fashilinta xukuumadii marxaladaha qadhaadh lagaga soo gudbay ee madaxweyne Cigaal Allah u naxariiste geesta kale barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa inqilaabkii dhagaraysnaa ee xilligaasi wasiir Xaashi iyo kooxo kale isku dayeen majaxaabinta xukuumadii madaxweyne Cigaal Allah u naxariiste daawade barnaamijku waxaynu ku dul istaagi doonaa doorkii qasqi qalalaasaha dalka waagaasi iyo waliba naanaysihii mas'uulkani kula baxay waqtigaasi waa Maxamuud Xaashi kama maqna barnaamijkeenan aragtida dadka Maxamuud Xaashi siyaasadiisa taageera hase yeeshee dadka dhaliila Mr Xaashi ayaa aaminsan inuu yahay hogaamiyaha ugu beenta badan dalka Maxamuud Xaashi xanuun hogaamiyaha beenta qarniga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uulkani door intee leeg ayuu ku leeyahay qabyaalada horeysiyo maantaba culimaa u diiniyo dumar iyo caruur iyo daa'imiya miskiin dhacay kadib biray waxoodii dararee ku naaxow daaca qurun madherigba deelma xoolahaaga Xaashi la diidan yahay maamul xumadiisa la diidan yahay musuqmaasuqiisa la diidan yahay awal baan anagu waxaan aragnaa haddana biciidaba nahay lagu karbaashay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay Xaashi ma ka mid ahaa qabqablayaashii doorka muuqda ka ciyaaray qubashada dhiiga bulshada ab iyo ood wadaagta kan inta haatan laga magacayo wax weeye xildhibaan Maxamuud Xaashi Cabdi Maxamuud Xaashi nin iskeelkiisu gaaray inuu noqdo gudoomiye guddi colaadeed oo beelay barnaamijkeena waa kuma ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa shakhsiyada dhabta ee mas'uulkani kama tagi doono heerka musuqmaasuqa muddada xukuumadda madaxweyne Siilaaya dalka ka talinaysay sidoo kale heerkiyo darajada milyaneerada maanta uu kaga jiro Mr Xaashi damiciisa siyaasadeed iyo wadiiqooyinka adeegsiga daayarta la soco barnaamijkan oo dhammaystiran maalmaha soo socda